السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعض وحن نقول عينيا أجيبده يقبلك أقبشين فرتانك حفلدان هوتيلك لوضع فريو بعد ما هتسنتهين وحن نقول عينيا إلهي ما هذا إذا كجارته أنت كبعضي هذا الخير وحها فرتان وحنا أورن لها دبان كأورن دورا هدي الله إنه وقت واسوغات بالوجرة دتكوا دالنا هاي ما أنت نواسو مناعي برينا إن السوام بيلا واسوف ضدينا وحنا ده لها كبعض ما عنده دوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحفلة ده ولوضع فريا هوتيلك عدول إلهي نوقرته اسمك كان إله سام هله بعد الله هنا وحنوم بهالنغينا لما أنت صور شرفتي دتكين عسوبي يعني ما هاد علينا وحنوم علينا يا حفلته وحفلة فريتان هوتيلك كان هذا البدن يحاج بدن ماله وحوي هوتيلك روح لنا هاي دتك دستي الله وبركيه مرادك إليه وخيرنا الله كسيو إننا أجر الله كسيو كسوق يبقلك يجيبده هوتيل كان runtii de waa loo jeedaa waxa weeye hanti fara badan baa gashay waxa la fahmayaa dadka hadda Soomaalidu badanaaba waxay yiraahdaan hadii lala kulmo meelayoga runtii aad baan u aragnaa waxay galin badan inaan sameynana waa isku daynayo Soomaaliya waxba lagu ma aamini karo bay yiraahdaan wadanka laba maal gashan kara bay yiraahdaan dadka ku soo dhiiraday ee runtii hantidan geliyay aad bay mahadsan yihiin waxa weyn bayna qabteen ciddii garanaysa waxa weeye waxa laga yaabaa hotelkan hadda 2 sano inuu socday maalintii mandaraqa u horeeya lagu dhuftay ilaa ay maanta dad baa ka faa'iideysanaya maalintii ugu horeysay qofkii ku dhuftay shaqaalaha mandaraqa lacag buu ka qaatay wiilasha hadda cuntada inoo dhigayaana lacag bay qaateen intaas kharash ayaa ku socday wadanka kharash bay gelinayeen waa arrin maartay aan dadka in yar u fahmayso in faa'iidada maalgashiga ama faa'iidada hantidan oo kale marka la sameeyo ay tahay wax la wada leeyahay oo dadku ka wada faa'iideysanayaan oo qofka lacagtan soo shaqeeyay kale uusan lahayn dadka ma wada fahmayaan laakiin waxaan oran lahaa saah loo fahmo waxaan oran lahaa lagu soo dhiirado wadanka la maal gashado iyaguna insha Allah ta'ala way ka macaashayaan way ka faa'iidayaan dadkana way faa'iideynayaan waxaan horta leenahay idinka Allah idin barakeeyo hantidiina iyo dhiiranaantiina iyo wadankiina inaad aaminteen oo intaad u soo shaqaysateen maal gashateen waana idinku hambalyeynayna waxaan leenahay wax dad iyo dunyo waxa haystaan Allah idin barakeeyo wax fiican baad qabateen waxbaad noo qabateen baan leenahay walaalayaal horta hotelkan waxa la yiraahdaa Aduun Palace Hotel wuxuu ka kooban yahay hotel dabaqa oo G Plus 6 ah floor oo ah dhismo hotela iyo dabaqa 7 oo ah hall waxa kale oo helisa restaurant ama makhaayad 2 cafeteria 3 hall masaajid store ama dukaamada Soomaaliya laga yiraahdo iyo gym asaguna soo socda hotelka wuxuu ka kooban yahay 9 building iyo buildingkaas hotelka ah waqtiyaal badan ba soo maray runtii sida oo garaadku runtii sheegayna waxaanu ahayd runtii arin aad iyo aad qalbiga ugu weyneed runtii dadaal badan iyo hawl badan iyo wuxuu ahaa safar dheer hawlo badan iyo soo maray wadan runtii wanaagsan oo u dhalan oo aan jecelnahay aan ka dhisanay laakiin runtii in hotelka noocaan ama hawshaan ka nushraaca laga fuliyo iska hawshiisa wutay marka hotelkan waa hotelkaas waa hotel casri ah kuma dheeraanay in afaaniyo laakiin waxaan rajaynayaa dadka ama arkay ama degi doona ama service-ka in ayagu markaad furi doonaan hotelkan runtii markaan dhisay gareynay ama ismiisa ka fikiraynay hotelada caalamiga ah runtii hotelada adduunka anigu qurba joog baan ahaayo shaylaatan sano u dambeeyay ku noolaa wadamada reer galbeedka runtii
waa hotel aan u dhisan garanay ama injineerka kule noo faahfaahin doona hoteelada casriga oo adduunka ka dhisan inuu la leebel yahay waxaana rajayn doonaa haddii ilahaydmo in aan servicekiisa iyo haddii la guuro yahay soo dhaweyntiisa iyo dhinac kasta oo stabilitygiisa ah aan sidaas oo leebelka noocaasa oo haddii ilahaydmo sii ahaado hotelka markaa bilaamayna dad badan oo runtii ama friends nahay ama haddii la guuro qaar kamid ah business partnerna waxay yidhahdeen intaanoo lacaga iyo intaanoo miyaa Soomaaliya gelinaysa intaanoo lacag haddaad ama America gashatid ama meelo kale aad gashatid oo ka population badan oo ka dhaqaale badan oo haddii la guuraya waa dhinac walba ayaga kaaga fiicnaan lahayd marka anigu waxaan ilmada Soomaalida waxay tiraahdaa runtii qof walbaba laba hore oo caws jiidan annaga dal baan leenahay dad baan nahay inaad dalkayga iyo dadkayga aan ku soo noqono aad iyo aad annaga waxaan ugu tahay dadkii hotelka aan dhistay farxad weyn ugu tahay farxad nooga weyn oo adduun ma jiro runtii inaan waddanka intaas dhaqaale gelino waan sii wadana insha Allah haddii Ilaahay waxaan rajeenayaa in aan meelo badan oo adduun baan dhisnay laakiin business badan ama hoteella ama business badan haddii Ilaahayno aan waddanka gudihiisa aan ka sii wadno haddii Ilaahayno oo ka sii investment-aan sii wadno wax yar baan rabaa saaxiibada qurbo joogta ah gaar ahaan ama dadka Soomaaliya meeshaas ay joogaan waddankooda inay ku dhiiradaan anigu hadda waxaan joogay 29 sano waddanka maqnaa 7 bilood u dambeysay waxaan joogay Garowe iyo gobolka Puntland 25 sano u dambeysay waxaan ku noolaa waddan galbeed oo waddanka America oo dawladnimada iyo ammaanka iyo runtii la yiraahdo adduunka u horeeya ammaanka 7 bilood aan dareemay iyo nolosha aan dareemay runtii 25 sano u dambeeyay ma aan dareemin markii saaxiibada waxaan rabaa inaan u sheego halkaan weeye meesha hadday tahay dhaqaalo hadday magac tahay hadday sharaf tahay hadday ammaanka hadday si walbaba tahay hadday future dama tahay ilmahayaga iyo future-kayga dama tahay halkaan weeye future-kayga marka waxaan rajeenayaa hoteella waaweyn warshado waaweyn business waaweyn horumarro waaweyn horumarku waddankan waxaa la anfaas garaystaa dhowr meelood baa loo kala saaraa waddankee waa waddan dihin runtii oo wax badan u baahan qofkii dhaqaale la yimaada oo Ilaahay u barakeeyo wax badan oo soo waddamada kale waa waddamo la miirtay waa la miirtaa runtii waa qofku markuu anfaas garaysanayo runtii meel dhifa maahane waa meel rag waa hore ka shaqeysta oo anfaas garaysta oo meel walba laakiin waddankii waa waddan dihin marka waxaan rajeenayaa sanad walbaba business cusub oo haddii la kuura caalami ah in Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan Puntland gaar ahaan caasimadda Puntland runtii oo ammaankeeda wax walba ay fiican yihiin inaa u hadla maahano madaxdii dawladda iyo madaxdii gobolka joogtay laakiin waxaan rabaa inaan saaxiibada intaas u gudbiyo marka walaalayaal aad iyo aad baan mahadsantihiin aad baan ugu faraxsanahay maatankiina hotelkan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybta dhismaha ah oo aad aragteen yacni wuxuu ka kooban yahay G+6 weeye oo kor ay tahay hall shirarka ah oo corporate meetings lagu samayn karo oo lagu talagalay waa 60 qol weeye oo isugu jira 3 category waxa weeye VIP deluxe iyo single mid walba uu ku leeyahay agabkiisii iyo qalabkiisu uu qalabaysan yahay furniture-kana loo soo dooray runtii oo laga soo dooray waddan ma garanaysaa Turkiga inuu ahaa baan u malaynayaa laga soo gaday markaad gashid gudihiisa yacni waxaad dareemaysaa tranquility dumanina yacni deganaansho runtii waxaas ka baxay ruux aad u wanaagsan oo qurux badan architectigiisana waa aragtaan banaanka markaa ka maraysaan wuxuu ku yaal boulevard fiican oo go-an oo magaalada markii laga yimaado uu muuqanayo marka xaggana ay ka tahay parking weyn buu ku leeyahay xaggana parking weyn buu ku leeyahay oo additional oo yacni waxyaabaha uu ku yahay yacni uu haysto gudihiisa haddii aan waxyaabaha ka kooban yahay 60 qol waxaa ku jira telefoonkii iyo TV-gii IT-gii waxaad uga baahnayd waxaa ku jira dabcan biyihii iyo korontadii waxaa ku jira allahu mustacaan CCTV-ga oo ah koridoradiisa indoor iyo outdoor labadaba waa ku jira oo security-ga si banaanka dhan iyo gudahaba loo ogaado sulamka laga degayo stairska waxaa ku yaala maadaama uu dabaq dheer yahay waxaa ku yaala liftigii oo ah
mascadkii waxaan ka wadaa wiishkii dadku raaci lahaayeen ayaa isagana meesha ku yaalla waxyaabaha uu balaska yahay waa systemkii biyo macaynta isagana ku jira meesha systemkii biyo macaanaynta ayaa ku jira oo garowe xoogaa biyahooda way cuslaayeen in la geliyo marka systemkaa lagu daro oo wax iyaduna positive uu leeyahay oo balasa oo hotelku leeyahay allahu mustacaan waxaan kaloo dhihi karnaa corporate meetingka sare oo qoladatan masalan haddii shirkad iyo cidi shir khaas ay yeelanayso 20 qof 25 qof 30 qof ay heli karaan iyagana majaalkooda iyagoo liftiga raacaya u fuduudba garanaysa qaxwadooda shaahooda waxooda helayaan design ku saas u ahaa korna loo bixi karo haddii aan hoos soo degno waxaa ku yaala dhankan hoose dhankaa shishe servicekii wixii khadamaadkii ahaay oo dhan waxaa ka mid ah kushiinkii oo sabashiosa runtii la qalabeeyey qalab fiican bay soo dhigeen dadka hotelka leh cabdisaaq iyo runtii waxay iyaguna way ka jawaabeen yani designkii quruxda badnaa ay heleen qalabkay soo dhigeen qalabeyntiisa way ka jawaabeen yani wax isla jaan qaadi kara oo isku mid noqon kara maajinku israacsan yahay allahu mustacaan waxaa jira qaybtaas waxaa ku jira allahu mustacaan waxaa ku jira supermarket oo sii jeeda oo dhanka usii jeeda waqooyiga waddada weyn oo meenkaa usii jeeda waxaa ku yaalla isagana cafeteria oo iyaduna xagga usii jeeda gudaha waxaa ku jira mundayaal kuwa xiran oo AC-gooda leh oo gudaha aa geli kadhib oo qofku fadhiisan karo dad ay ballansan iyo wixii ciddii ma garanaysaa ama shir khaasa ku qabsan karaan iyo kuwa hawada u furan intaba way leeyihiin dalladihii bay soo dhigeen oo kusoo dareen oo balasa oo kor iyo hoose oo geesaha dhankaan markaan usoo wareegno wuxuu positive ku yahay jihada kale boulevardka wuxuu ku leeyahay barkin aad u fiican 2 barkin oo labada dhinac waxyaabaha uu ku yahay way cajiibka waxaa kale oo ku jira 3 hool oo shirarka ah oo 2 hoos tahay midna kan aynu ku jirna hadda uu yahay waa 3 hool oo shirarka iyo ka corporate-ka marka waa mashruuc mutakaamil ah oo yani casri ah oo la jaan qaadi kara waa isla 40 sano soo socda iftiisu leeyahay foundationka iyo structure-kana waa ugu talagalay in la saari karo kuwa kale marka iyaduna haddii ay petrol iyo nimco ilaahay siiyo siyaada oo ay arkaan in ay sii soconayso inay saarsan karaan oo liftigina uu xiran yahay structure-kiina uu sii socon karo baa iyadana lagu talagalay marka guud ahaan waa arrintaas uu ka kooban yahay waxaan leeyahay mar labaad hanii'an ragga maalgashaday ama muxuu ahaa familiga maalgashaday intay lacagtoodii ka soo wareejiyeen dhul ajnabi halkan keensaday waxaan leeyahay hanii'an allah idin barakeeyo hanii'an waxaan misna leeyahay dadka customerka oo noqon doona caduud customerkooda iyagana kusoo dhawaada serviceka iyo khidmadaadka aad baan u mahadsantihiin shirkadduna waxay noo tahay inaanu fulino mashruucaan oo kaleeto salaanta ka bacdi waxaan u mahad celinayaa runtii walaalkeen cabdirasaaq cali cigaal oo runtii hirgeliyey hotel micno leh magaalada iyo deegaanka labada wax ugu yaalla sidii garaadku uu markii hore sheegay in projectigan oo kale la fuliyo runtii wuxuu u yahay dalka nolol ilaa maalintii siduu garaadkuba sheegay badeelkii horreeya la dhigay ilaa maanta in qofna kharash bixinayo qolana ay ka faa'iidayso waa u mahad celinayaa cabdirasaaq iyo walaalihii kale oo projectigan hirgeliyey runtii micnaha leh waxayna sharaf u tahay deegaankeenna Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland iyo magaaladeena Garowe in dadkii dalka u dhashay ay dib ugu soo noqonayaan nabadda iyo xasiloonida baa sabab ah waan leeyahay anigu waxaan ka mid ahaa raggii mar hore soo laabtay sida cabdirasaaq oo kale oo waddanka ku soo noqday hadda 5 sano u dambeysana waa joogay runtii waxaan leeyahay waxaynu u baahannahay in dawladdii hadda way fadhidaa lagu dhiirigeliyo dadka investorska maalgeliyaasha inay ku soo noqdaan dalka oo la dhiirigeliyo waxaan aad ugu mahadnaqayaa ganacsatada iyaga oo haystay waddan weyn oo ay ka shaqaystaan intay ganacsigoodii soo usoo wareejiyey waddankooda waxaan leeyahay ilaahay hayda ka abaal siiyo cabdirasaaq mulkiilaha allaha u barakeeyo ilaahayna wixii waddankan geliyay wax ka badan ha ka siiyo intaa kadib annagu sida deg baan nahay wax allaale wixii nagu soo biira abaal gaaraanu ka haynaa oo ganacsiya magaalada tani waa caasimaddii Puntland waxaa ka dhaca shirar waaweyn iyo kulamo waaweyn ha noqdeen kulamo siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale iyo kuwa bulshaba
waxay u baahan yihiin markay servicekaas ay heli karto. shirar badan oo waddanka dibaddiisa lagu qaban jiray ayaa hadda waddanka gudihiisa loo soo waaciyey. waxaa ugu dambeeyey kii heritage oo awal Jabuuti lagu qaban jiray oo Garowe ay marti gelisay oo ay ku filnaatay dhammaan dadkii martida ahaa meel ay ku shiraan iyo meel ay seexdaan iyo adeeg loo qabtaba. hoteelkaana wuxuu ka mid noqon doonaa shirarka waa ka waaweyn marka la qabto meelaha maaragtay servicekaas wax ka fidin doona. waxaan filayaa haddaan koronuhu uusan jirin mar horaa maaragtay hoteeladeennu ay heli lahaayeen waxa ay gasheen, laakiin koronihii baa xoogaa caqabad noqdayo. isagana insha allahu tacaala markii talaalka dadku qaato oo ilaahay wayna ka saaraya haddii rabbi idmo. hoteelkan waxa ugu badan oo laga helayo waxaa ka mid a shaqo abuurka oo dad badan baa shaqo ka helaya oo noloshooda ka dabaranaya. dawladduna waxay ka helaysaa dakhli, mulkiilayaashuna waxay ka helayaan faa'iido. marka isaga iyo wixii la midka ahba waa wax maaragtay aada loo soo dhaweeyo. hoteelkan qiimaha iyo qaayaha badan Garowe Bilaa la yidhaahdaa, Garowe Bilay bilic qurux badan kusoo saa'idiyey, dhaqaale iyo investment keenay, shaqo abuur sameeyey, isku dayasho iyo ficiltam sameeyey. waxaan leeyahay Cabdirasaaq isagu waa ceeb asture. halka waxaa iga muuqda golaha wasiirada u badan reer Minnesota iyo mulki iyo marka haddiina la yidhaahdo war maxaad kusoo saa'idiseen Puntland, waxaan u maleynayaa hotel cadduun baan odhan doonaa. marka hoteelka kani xaqiiqatan Cabdisaaqana waa isnaqaanaa. Cabdisaaq waa ii sheekeeyo waxaan ka wada nimid Maraykanka gobol Minnesota la yidhaahdo. wuxuu ku jiraa xaqiiqatan dadka Soomaalida dadka ugu dhaqaalaha roon. isku ganacsiyaan ka shaqayn jirnay similar ganacsi, laakiin isaga kuwiisa alla waa barakeeya, alla saacidiyo. Cabdisaaq nin kale aan isla garanayno isaguna reer Minnesota haddana gobolladan ka yimid baa la sheekaystay. wuxuu yidhi warniyahow $3 milyan inaad Garowe geliso waa impossible. $3 milyan South Africa iyo Kenya iyo caalamka kale iyo Minnesota iyo adduunkana aad gelin kartaa. hotel $3 milyan ku kacaya, dhulka oo $500,000 ku kacay. qofkii qiimeeyay damaaqan macnaheedu iyo wuxuu ka lahaa gudoomiyihii degmada joogo. waxaan u maleynayaa dhulka qiimeyn baa loogu noqonayaa, lacagta qayb baa la soo celin doonaa. hoteelka kani dhaqaalo badan oo wuxuu ku kacay xaqiiqatan sidoo Cabdisaaq ku shaqeeyey anigu aan ogahay xaqiiqdeeda. meesha tani Cabdisaaq wuxuu yidhi waxaan ka helnay amni iyo qorax iyo dadkaygii aan la joognay caafimaad. waxaan garanayaa meeshuu ka imaanayo ilaa 5-4 bilood oo Minnesota uu joogo qabow oo baraf la xaaqayo la ordayo ka soo shaqeeyay. marka noloshaan in la haysto oo hoteelkan la soo saa'idiyey iyo wax la mid ah waxaan rajaynayaa in Cabdirasaaq the celebration gaar isaga loo samayn doono oo lagu oran doono dhiirigelinta dadka reer Puntland ama Soomaaliyeed ay dhiirigelisay. waa kaaga mahadcelinaa gudoomiyaha degmada uga fadhinaata hadduu lahayn mar labaad iyo mar saddexaad. waxaan leeyahay hoteelkan qiimaha badan waa ku faraxsanahay. marka waxaan rajaynaynaa horta tusaale nool inay tahay arrintan, inuu qof u soo bareeray 25 sano isagoo ka maqan. qoraxda uu sheegay iyo nabaddana waan la aragnay oo waxa way waddanka hadda waxaan ugu soo laalaabanaynaa intaba waan ku haynaa. ilaahay ha u siyaadiyo. waxaan rajaynaynaa inay dad kale oo reer Puntland meel kasta ay joogaan kolley hadda Minnesota waxaan u maleynayaa inaan iska dhaqnay inaynu halkaan xilal un laga hayee aynu noqonay maalgashatayaashan aan ka mid noqon. aad baan ugu faraxsanahay. Cabdisaaq oo ga mahadnaqayaa inuu kusoo dhiirtay. reer Minnesota way ka buuxaan weliba dad kale oo badan, rag iyo dumarba oo mar walbaba ka fakeraya sida ugu soo noqon lahayn waddanka. inay kusoo dhiiran doonaan baan u maleynayaa. maalinba qof uu maalin imaan doono. siiba waxaan rajaynaynaa in ay dadku ay fiirshaan caafimaadka siduu meerkaba ka dhawaajiyey, caafimaadka in la eego maaragtay iyo dadka soo laabanayaba sidii loo heli lahaa servisyada ay raadinayaan si ay dadka loogu tababaro. dadku waxay doonayaan markii ay soo laabtaan serviceka ay doonayaan in la helo. marka insha Allah kolley anagu waxaan nahay dadkii u dhaxeeyey dadka gudaha ku jira baahidooda iyo dadka imaanaya si ay u ogaadaan
meelaha u bannaan ee ka maalgashan karaan. waan ugu mahadnaqayaa cabdirasaaq mar kale inay horta ceebtayada uu asturay in haddaana heer Minnesota uu maaragtay uu noqday qofkii ugu horreeyay oo maalgashi sidaan u ballaaran u weyn meeshaan quruxda badan madashaan iyo hoteelkaanba allah asagana ha u barakeeyo. runtii farxad bay noo tahay inaan caawa 28 bishii afraad 2021 aan halkan kaga soo qayb galno xafladda daahfurka hoteelka Caddoon Plaza oo ay maalgeliyeen dad qurba joog ah oo ay ugu horeeyaan ilmo Cali Cigaal khaasatan saaxiibkay walaalkay Cabdirasaaq Cali Cigaal oo aan muddadii uu sheegay meelna wada joognay wada shaqayn jirnay iyo walaalihiisba iyo in badan oo caawa halka kan fadhida runtii waxaan marxaanti ka nahay dhammaanteenba in Cabdirasaaq iyo ganacsatada kale ee hawsha tan la hirgeliyay ay muujiyeen karti dheeraad ah sida halkan laga sheegayna ay astureen haddii ay jirtay dhaliil qurba joogta khaasatan meesha anagu aan ka nimi Cabdirasaaq iyo walaalihii iyo inta kale ee businesskan iyo ganacsigan barakaysan la hirgelisay oo waxaan leenahay waa mahadsantihiin ilaahay ha inoo barakeeyo dhammaanteenba maskaxda iyo dhaqaalaha iyo kartida aynu gelinay halkan fariinta ku socota marka qurba joogta ee dhammaanteen aynu halkan ka gudbinayna caawa waxay tahay waa ku dayasho wanaagsan waa tilmaan iyo tusaale wanaagsan waa wax lagu qaato intii aan dalkan joognay aan qurbaha ka soo noqonnay waxaan dareennay runtii waxaan dareennay ammaan waxaan dareennay nabadgelyo waxaan dareennay wax wanaagsan weliba meeshaanu ka nimi waan is ogtihiin reer Minnesota iyo North America dadka ku noolow subax kasta iyo habeen kasta waxaynu isweydiin jirnay waxay ahayd how is the weather tonight how is the weather today there's no hadda ma jirto marka haddaad Soomaaliya timaadid oo Puntland timaadid cid hawo ku weydiinaysa iyo cid weather ku weydiinaysa iyo cid climate-ka iyo maxaan ku yiraahdaa siday tahay ku weydiinaysa dalka kaalaya dalka dhisa aqoonta nala dhisa caafimaadka nala dhisa infrastructure-ka iyo qaabka iyo dalka kaalaya nala hagaajiya soo bareera oo kaalaya sida Cabdirasaaq iyo walaalihiis iyo kuwa kale oo farbadan ay soo bareereen qurba joogta weliba reer Minnesota saaxiibada aan nahay ee kumaakunka iyo boqolaalka gaarayo si fiican baynu isu garanaynaa kaalaya dad farabadan oo aan aad u aqaan oo Cabdirasaaq ka hanti badan baa jooga weli meeshii kaalaya oo hoteelo badan iyo ganacsiyo badan iyo waxyaabaha faraha badan iyo oo weliba ka faa'iideysta shirkii halkan lagu qabtay ee Puntland Investment oo caalamka markii ugu horeysay halkan Garowe lagu qabtay midhihiisa baan joognaa caawa mid kamida weeye tani kuwa kale oo fara badan inaan hirgelinana waa laga maarmaan waxaan rajaynaynaa annaga ka xukuumad ahaan waxaan aad u soo dhawaynaynaa oo boqolkiiba boqol aan soo dhawaynaynaa cid kasta oo waddankan iyo dalka kan ku soo kordhisa ganacsi maskax caafimaad qabta rabitaan iyo doonitaan dalka kan iyo ummadda tani waxay ku horumar lahayd soo keenaba baan aad baan u soo dhawaynaynaa midda kale hadda airport caalami aynu haysanaa qurba joogteennii diyaarad caalami aynu keennay dowladda tan maalintii waxaa laga yaabaa 60 qof oo aan horey dalkan u imaan jirin hadduu wiil fasax helo inuu yimaado hotel fiican uu ku dego waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu $5,000 wato rabo wiigaa u joogo 20 maalmood haddii maalintii 60 qof yimaadaan ama flightska kale Nairobi ka yimaado meelaha kale 40 kale la socdaan 100 qof oo 5,000 wataa waa imisa ku dhufo ما يوقفون كوي صح؟ وشو بقولكم؟ هذي شو بقولكم ما أنت جروا ودتك إيمانا السفر كاي سوق ليا هذا كمان هذا يدتك ريسيرنس كها محيو باهيين وحيو باهيين لما تري عدورة كلا يمرسورة كلا لا مركورت مجالو وحياه صوت شيء كميته أو يقف كم مجالو مركو يهدو كهلا أسبتالة فيعن هوتيل فيعن وطف فيعن ما فيعن كله جاينا يا أمان شرو هذا ما عاصمة دينا الدبرة إنه يفيشن كحمر يلا تفتنتو haddaynan garowe bolosiga dhulka wax ka bedelin oo dhulka qaaliga ayna wax ka bedelin hadda ogaada marka qof uu rabo inuu hotelka kala dhiso marka uu dhulku gadanayo 1 milyan yahay wuxuu ka dhisayaa meel
ay ka sahlan tahay inuu yimaado. Marka waxaa laga maarmaan aan rabaa inaan fursaddan aan uga faa'iidaysto. Magaaladani waa magaalo aynu u diyaarinayno mustaqbalka inay Xamar iyo Hargeysa la tartanto oo aynan dadkeennu hayaanka hore uusan ku dhicin. Marka insha Allah tacaala waa u ducaynaynaa runtii waa labeenta maartay waxaanoo kale aad u maalgelisay hudheeladana aad bay muhiim tahay in cuntada macaan iyo serviceka macaan iyo waxaa lagu hayo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Adduun Plaza waynu u jeednaa waxaynu markhaanti ka nahay inuu yahay hotel standard ah oo la jaan qaadi kara hoteelada adduunka. saaxiibadeydii horaa runtii ka hadlay laba arrimood oo aada muhiim u ah oo dardaaran ah. mulkiilayaasha waxaan kula dardaarmaya Cabdirasaaq iyo inta managementiga hayse waxaan kula dardaarmayaa standardka in la ilaaliyo, in standardka in lagu ilaaliyo, inuu wax ku saa'idaan maaha inuusan hoos u dhicin. waa arrin aada iyo aada u muhiima. Soomaalidu dhaqan ahaan waxaynu leenahay waxaynu dhisnaa guri ama warshad ama wax kastaba ahaatee, laakiin maintenance-ka kuma fiicnin, wax laguma celiyo. waxaa loo baahan yahay dhaqaalaha ka soo baxa businesska nooc kasta ha ahaadee in percentage meel loo dhigo kaasoo lagu ilaalinayo maintenance-kiisa in lagaga shaqeeyo. runtii haddii aan laga warqabin oo maintenance-kiisa laga shaqeyn waxay noqonaysaa in uu hoos u dhacay noqonaysaa. runtii hadal badani meesha kama furna. waxaan leenahay Cabdirasaaq iyo walaalaha kaleeto iyo ehelka kale iyo business partnerkiisa kaleeto, ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu noqdo businesskaanu kii bulaala lagu barwaaqoobo inuu noqdaan ka rajaynaynaa. fariin aan la wadaagayo saaxiibadayda qurba joogta ah. nin saaxiibkaa sheegay waa run, magaaladii aanu ka nimi oo Minneapolis waxaa jooga number badan, rag aad iyo gabdho iyo rag iyo dumarba waxaa jooga aad iyo aadadu badan, dhaqaale xoog lena haya. laakiin waxaan ku dhiirigelinaynaa, waxaan leenahay cabsida iska saara oo lacagta intaa leeg meeshii ma ka soo baxaysaa, ma helaysaa, ma ku khasaaraysaa, iska saara. kusoo dhiirada waddanka. sektarro badan baa jira oo hadda bannaan. caafimaadku ka mid yahay, waxbarashadu ka mid tahay, warshaduhu ka mid yihiin. waxaan codsanaynaa qurba joogta meel kastaa joogeen, ama North America ha joogeen, ama Europe ha joogeen, ama Africa ha joogeen, inay waddanka kusoo noqdaan, inay waddanka maal gashadaan. Cabdirasaaq iyo inta walaalihiisa qaraabadiisa oo maalgashigan ku dhiiratay inay sameeyaan, waxaan u soo jeedinayaa mahad. waxaan u soo jeedinayaa ammaan. waxaan ugu ducaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala, waxaan uga baryayaa in mashruucani noqdo mid guulaysta. may maqlaysaan? waxaan ilaahay ka baryayaa inuu noqdo mid lagu guulaysto, mid faa'iido degdega laga helo, mid dantii laga lahaa iyo ka badan mid u soo jeeda Garowe baan ilaahay uga baryaya. waxaan jeclaan lahaa inaad niyadda aamiin ka wada tirahdaan. ilaahay inuu guuleeyo, ilaahay inuu ka dhigo mid miro dhala baan ilaahay uga baryay. tan aan ugu dambaysiinaya waxa weeye dawladda, xukuumadda, wasiiradii waa joogaan, in badan baa ka joogta,
wasiirkii arrimaha gudahaan ujeeda halkaa waxaa iga muuqda wasiirkii haduusan ka kicin halkaas wasiirkii hawlaha guud iyo guriyeynta ma baxay waxbaa igaga beegan baan umalinaya ya halka kan laba wasiir baa is dhinac fadhiya xaggaa laba wasiir oo kalea is dhinac fadhiya laguma dhamma wasiiradii markaan kitaabkooda fiirino laakiin waa lagu badan yahay laguma yara waa mahadsantihi waxaan kaleetoo codsanayaa xukuumaddu in ay siiso mashruuc kasta oo cusub oo la bilaabayo si uu ku guulaysto xukuumadda waxaa laga rabaa wax badan oo ku xirmaaya oo ganacsigu u baahan yahay xukuumaddu inay fududayso baa laga rabaa xukuumadda waxaan ka codsanayaa inay arrintaas ka howlgalaan dhiirigeliyaan fududeeyaan waxyaabaha hoteelku u baahan yahay oo bilowga ama cashuur ha ahaato waxaa la soo dejinayo ama kharajaadkiisa markii waxa laga cashuurayo dakliga soo gelaya ha ahaato inay fududayso baan ka codsanayaa xukuumadda salaan kadib aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sidii akhyaartii iga horreysaba ay sheegeen inaan caawa ka soo qayb galno munaasabaddan lagu daafurayo ama xarigga looga jarayo hoteelkan cusub iyo adeegyada kala duwan ee wato run ahaantii aad baa looga hadlay caaway muhiimadda ay leedahay maalgashiga dalka la maalgashanayo muhiimadda ay leedahay dadka Soomaaliyeed ama gudaha ha joogeen ama dibadda ha joogeen ee dalkooda gelinaya hantida muhiimadda ay u leedahay horumarka muhiimadda ay u leedahay nabadda muhiimadda ay u leedahay kobaca bulshada intaba aad ayaa caawa looga hadlay waana bogaadinaynaa waxaan si gaar u bogaadinaynaa cabdirasaaq iyo saaxiibadiisa la maalgashaday mashruucan ballaaran oo sida halkan laga dhawaajiyay dhaqaalaha tirada badani galay muddada koobanna ku dhismay bilicda iyo quruxda ka muuqatana halkan lagu soo bandhigay sidii isimadii iyo mas-uuliyiinta kala duwanaaga iga horreeyaba ay sheegeen waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo waxaan leenahay ilaahay dhaqaalaha meeshaas la geliyey ha bulaaliyo oo ha badiyo waxaan rajaynaynaa insha allah inuu noqdo mid lagu daydo oo dad badanna ay ku daydaan intaa haddaan idhaahdo sida wasiiradii iga horreeyey ba ay yidhaahdeen wasiirka duulista hawada iyo wasiirka ganacsigu khaasatan dowladda puntland waxay horay sanadkii 2019 u qabatay shir maalgashi oo aada u ballaaran oo Soomaali iyo ajaanibba la isugu yimid qabashada shirkaas ka hor waxaa jiray diyaargarow ballaaran oo loo sameeyey in Puntland loo diyaariyo inay noqoto meel maalgashi inay noqoto deegaan la maalgashan karo oo dadka Soomaaliyeedna ay maalgashan karaan ajaanibtuna maalgashan karo taasoo micnaheedu tahay in shuruucdii iyo qawaaniintii hagi lahaa arrintaa maalgashiga la diyaariyey in maalgashiga la fududeeyey shuruudaha ku xeeran waxaad ogtihiin dalka Soomaaliya ka sokow hadda hanaankan dowladiska weli ku jira oo Puntland ay ugu horreysay oo federaalka waagii hore wuxuu ahaa dowlad dhexe oo hal meel wax laga maamulo xeerarkooda dhanna hal meel laga jaangooyo sidii wasiir Ilyas uu sheegayay taas waxaa meesha ka maqnaa xorriyadda dadku ay u haysteen waxa ay rabaan inay maalgeliyaan iyo in loo fududeeyo marka ilaahay baa waxa mahadiisa ka sokow inaynu hanaankaas oo hay-ad ahaan wasaaradda ganacsiga iyo ay hagayeen haddana in shirkaas markii la qabtay ama diyaargarowgiisa ha noqoto ama kadib ha noqoto casharadii laga bartayba in Puntland ay diyaar u tahay in la maalgasho marka waxaan ugu yeeraynaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo ajaanibtuba
inay puntland tahay meel diyaar u ah in la maalgashado haddii lahayn puntland inay diyaar u tahay inay ilaaliso dadka maalgashanaya dhaqaalahooda hadday tahay amniga puntland inay diyaar u tahay in dhulka oo waxyaalaha runtii waagi hore ay ka taagnaayeen caqabaduhu la fududeeyo waxaa la diyaariyey xeerkii dhulka oo wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidku ay diyaarisay oo hay-adihii meel marinaya o dhan hadday tahay golaha wasiirada iyo hadday tahay baarlamaankuba ay meel mariyeen waxaa la diyaariyey shuruucdii kale ee maalgashiga kuwii kambaniyada ama company actiga wa lowga waxa la yidhaahdo dhammaantood waa inoo diyaar xafladdan ikhyaarta ka soo qayb gashay oo faniyada kala duwan leh rag iyo dumar allaha idin barakeeyo khayr allaha idin siiyo waktiga aada siiseen hoteelkan iyo daahfurkiisa waxaa mudan tihiin duco iyo soo dhaweyn iyo hambalyo taas waa iga intaa cabdirasaaq iyo dadka ku lifaadan oo halkaan maal gashaday waxaa ku filan annaga qurbaha dadka ka yimaadaa waxaa noo imaan jiray dad wax naga doonaya dad wax nagu soo biiriya nooma imaan jiri waa runtii nin madax soo doontay iyo gabar madax soo doonato markay waxawaayaana iska nooda marka kow weeye qurbaha cid ka timid oo abuurta mashruucan oo kale ammaan iyo marka duco iyo hambalyo naga guddooma khayr allaha idin siiyo iyo barako allaha idin barakeeyo hoteelkan iyo hoteelada lamida yaa ay wax tarayaan dadka iska leh iyo degaanka ay ka dhisan yihiin oo reer puntland yaa u nacfiroon yaa u magacaroon dadka reer puntland oo degaankan degan baa u magacaroon oo u nacfiroon martida haddaan degsano waxaa la odhanaya war hoteelkaan hoteeladan oo kale annaga nooma dhisna dad badan baa nagu dayanaya noo masayraya meel aan degsanoba martidaba haddaan weyno soo doqonnimo maaha hoteeladan puntland ku aragnay oo kale dadku hadday yidhaahaan soo sharaf iyo karaamo nooma aha taasna waxa weeye waa waxaad u tarteen dadka iyo dalka idinkana khayr allaha idinka siiyo waxaana rabnaa in dad badan idinku daydaan baan rajaynaya ma rabo intaan sheegay inaan dhaafo sii dhaafo waxaan u ducaynayaa dadkaan anaa u weyn wax ila e kuma arka meesha boqor cabdullaahi ma joogaa horta maxaa caawil loo siin waaya hadal o wax ila eg ama igu dhawaadaan meesha ma fadhiyaan ilaahayna inuu aqbalaan rajaynayaa saasaan u codsaday inaan hadalka ugu dambeeyo oo ku duceeyo tawfiiqda allahana waafajo tawfiiqda allahana waafajo tawfiiqda allahana waafajo dembigeena iyo kii waalidkan allaha noo dhaafo xaqa allaha nagu hanuuniyo muslimiinta allah u gargaaro dawladda soomaaliya ilaahay waxaan ka baryaynaa madaxdeeda iyo majaheedaba ilaahay inuu isku dabirido tawfiiqda waafajiyo saasaan ilaah ka baryaynaa ilaah waxaan kaa baryaynaa dawlad fiican oo islaam ah oo ummadda xaqa ku wada rabbigo baan kaa baryaynaa ilaahuna aqbaloo na ajiib madaxweynaha caawi waxaan rabnay halkaan inuu nagala soo qaybgeli doono laakiin waa u cudadaaraynaa arrimo waxaa uu u mashquulay ee kale oo ka culays badan halkan isagana waxaan leenahay arrintuu ku jiro allaha u fududeeyo annagoo dhan xaq allaha nagu hanuuniyo allahuma salli calaa maxamed faatixa